magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxay ka mid tahay magaalo xeebeedyada qadiimka ah ee ku suntan taariikhda iyo xadaarada mandaqada Geeska Afrika gaar ahaan waxay Berbera caan ku tahay ganacsiga iyo isu socodka dadweynaha Geeska Afrika magaalo xeebeedda Berbera waxay leedahay xadaarad ka fac weyn magaalooyinka kale iyadoo lehna dekada ugu wanaagsan marinbiyoodka badda cas ka hooseeya waana magaalo caan ku ah xadaarad soo jireen ah oo aan la wadaagin magaalooyinka kale ee Soomaaliland iyo Geeskaba magaalada Berbera waa goobta kaliya ee doonta u ah lafdhabarta dhaqaale ee Soomaaliland waana magaalo caan ka ah adduun weynaha sidoo kalena leh xeebta ugu quruxda badan uguna dalxiiska fiican marka loo eegayo halka ay ku taalo iyo taariikhdeedaba magaalada Berbera oo muddo dheer caalamka u siday hormuudka marinka ganacsi iyo xadaaradeed ee mandaqada Geeska Afrika waxay rukun u ahayd quwado shisheeye oo ka soo talin jiray mandaqada kana mid ahaayeen Ingiriis, Mareykan, Ruush iyo dawladda Islaamiga ahayd ee Cismaaniyiinta ee hadda loo yaqaan dalka Turkiga kuwaasi oo magaalada Berbera kaga tagay aataar qadiimiya iyo dhismayaal boqolaal sano ka hor la bineeyay inkastoo ay waqtigan ay dhinac socdaan dhismayaasha casriga ah iyo jidad cusub oo laga dhex sameeyay suuqyada magaalada iyo xaafadahoodaba waxaana Berbera muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay maalgashiga ganacsatada gobolka ku sameeyeen oo iyaguna sidii qorrax iftay uga soo dhex muuqday magaalada ishaaduna ay soo jiidanayaan dhismayaasha casriga ah ee quruxda iyo bilicda soo kordhiyay isbedeladaasi kala duwan ee magaalada Berbera ka hana qaaday waxa iyaguna garab socda korokaca ku yimid iskuulada iyo jaamacadaha waxbarasho ee magaalada laga furay taasina waxay saamaxday in Berbera sanadihii ugu dambeysay ay ka soo baxaan aqoon-yahano ku suntan cilmi ku sidkan aqli kuna sargo'an tacliin heerkeedu sareeyo magaalada Berbera sidoo kale waa rukunka ugu weyn ee ilaha dhaqaale ee Soomaaliland ku tiirsan tahay waxaana ku taal dekada ugu faca weyn geeska ee ay wax inooga soo degaan waxna aynu ka dhoofino dekada waxa si toos ah ugu xidhan xiriir ganacsina uu ka dhaxeeya wadanka aynu jaarka nahay ee Itoobiya oo markii ay kala go'een Eritrea ka xidhatay xiriirka badda cas iyo adeegsigii badaha waqtigii intaasi ka dambeeyay Itoobiya waxay adeegyadeeda iyo badeecadaheeda kala soo degtaa dekada magaalada Berbera haddii aynu wax yar ku noqono aasaaskii iyo dhismihii bilowga ahaa ee dekada magaalada Berbera waxaa la sheegay in sanadkii 1330kii sahamyaal Shiina ay dekad macmal ah ka sameeyeen magaalada Berbera iyadoo burdig u ahayd dekada aynu maanta leenahay iyadoo qodobadii kala duwanaa ee kala dambeeyay ee magaalada Berbera ka talin jiray isaga kala dambeeyeen dhismaha iyo kordhinta dekada magaalada Berbera dekadu hadda waxay ka kooban tahay laba qaybood oo midna Ruushku sameeyay sanadkii 1968kii midna Mareykanku sameeyay sanadkii 1982kii waqtigii intaasi ka dambeeyay wax dhismo iyo qalab ah laguma kordhin dekada magaalada Berbera marka laga yimaado dhismayaal ballaadhin iyo qalab kooban oo maamulka dekada iyo xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay dekada magaalada Berbera waxay sanad kasta rartaa ama soo dejisaa 26,000 oo container sida lagu sheegay daraasad la sameeyay sanadkii 2014kii waxaana dekada ku soo xidhay 770 markab iyo doonyood waxa iyaduna biyo kama dhibcaan ah in dekada magaalada Berbera ahaan jirtay dekadaha ugu horeeya gobolka 25kii sanadood u dambeeyay dekadihii dhigeeda ahaa intooda badan waa la maalgeliyay balse nasiib darro iyadu ma helin wax maalgashi ah waana sababta ay awood ahaan iyo adeeg ahaanba uga dambayso dekadaha gobolka maadaama ay tahay dekad qadiimi ah oo aan u samaysnayn una habaysnayn una qaabaysnayn inay soo dejiso lagana raro konteynaro xajmi weyn sidoo kale dekadeenu ma qaado maraakiibta waaweyn ee konteynarada lagu qaado waxaana sanad kasta dusha Berbera mara 25,000 ilaa 30,000 oo markab oo ku xidha dekadaha wadamada jaarkeena ah balse haddii ay dekadeenu weynaan lahayd oo qalabaysnaan lahayd maraakiibtaasi way ku soo xidhan lahaayeen dekada iyadoo aynu ku tanaadi lahayn dakhliga dhaqaale iyo faa'iidada ganacsi ay inooga soo xaran lahaa waxaanay suureyn lahayd in saldhig suuq ganacsiyeed bulshada Geeska Afrika uga furmo magaalada Berbera laguna soo dhiirado wadanka Soomaaliland haddaba intaas oo baahiyado isbarkan markii ay aragtay xukuumadda Soomaaliland isla markaasina aanay jirin awood iyo dhaqaale xukuumad iyo ganacsatada aynu ku maalgashano dekada magaalada Berbera waxay xukuumadda Soomaaliland wada hadal la furtay ilaa 7 shirkadood oo ka shaqeeya maalgelinta dekadaha wada hadallo in badan socday iyo qiimeyn dheer kadib waxay xukuumaddu heshiis maalgelineed la saxeexatay shirkadda DP World ama Dubai Ports World oo iyadu heshiis kula jirta 40 wadan oo caalamka ah oo afar ka mid ah ay ku jiraan 10 dekedood ee adduunka ugu weyn sida wadanka China, India, Indonesia, Pakistan, Philippines, South Korea, Vietnam, Thailand, Australia, Argentina, Brazil, Dominican Republic, Algeria, Belgium, Djibouti, Masar, France, Germany, Mozambique, Holland, Romania, Saudi Arabia, Senegal, Spain, Turkey, Imaaraadka iyo wadanka Ingiriiska intaasba waa wadamo la aqoonsan yahay oo kamid ah kuwa caalamka ugu dhaqaalaha badan uguna waaweyn waxaana taasi ku tusaysaa in shirkadda DP World tahay shirkadda caalamka oo dhan laga yaqaan
oo lagu aaminay maamulka dekedaha adduunka ugu waaweyn marka dhinaca kale laga eegana Soomaaliland waxay heshiis la gashay shirkad wadamada adduunka intooda badan xidhiidh ku leh saaxiibo badanna ka samaysatay haddaba waxaan soo koobi doonaa faa'iidooyin badan oo maalgashiga Dubai Ports World u leedahay Soomaaliland iyo shacabkeedaba ugu horreyn waxa la ballaadhin doonaa dibna loo dayactiri doonaa dekeda qadiimka ee aynu hadda isticmaalno waxaana la dhisi doonaa dekad cusub oo 800 oo mitir ah halka ay teeno hadda ka tahay 650 mitir heshiiska maalgashiga dekeda magaalada Berbera ee xukuumadda Soomaaliland la gashay dawladda Imaaraadka Carabta waxa isaguna barbar socda heshiis maalgelineed oo dawladda Imaaraadku inaga taageeri doonto dhinacyada tamarta beeraha dalxiiska shaqaalaha gaadiidka iyo dhinaca warshadaha marka laga yimaado shaqo abuurka iyo kobaca dhaqaale ee maalgashiga dekeda Berbera ay samayn doonto waxa isaguna uu iba furi doonaa suuqa xorta ee shaqaalaha adduunka oo dawladda Imaaraadku ugu horreyn ay ballan qaaday in shaqaale badan oo reer Soomaaliland ahi ay u shaqo tagi doonaan shirkadaha iyo ganacsiyada waaweyn ee waddanka Imaaraadka Carabta dhanka kalena waxa uu heshiiskani Soomaaliland u soo jiidi doonaa indhaha beesha caalamka iyo maalgelin shisheeye oo dalka ka samaysanta magaalada Berbera way camirmi doontaa waxaana la tartami doontaa magaalo xeebeedyada dhigeeda ah oo ay noqon doonto sida ay waqtiga calanka ugu siday hormuudkana ugu ahayd waxaana la dhisi doonaa hoteelo 5 stars ah oo nasasho iyo dalxiisba looga yimaado wadamada caalamka si kastaba ahaatee maalgashiga dekeda Berbera waa guul soo hoyatay bulshada iyo qaranka Soomaaliland waxaanay baritaari doontaa geedi socodka ictiraaf raadinta Soomaaliland waxaana inoo noqon doontaa waxaynu dhamaanteen munaafacaadsan oo ina habta